kadib in muddo markii ay baxayeen guud ahaanba kaymaha dhulka xoolo daaqsimeynka ee degmada Woodward isla markaasina koox dhalinyaro ah ay caadaysatay in ay ka gubto dhuxul ayaa arintaasi waxa uu istaagay isla markaasina sidii ay ula gaari lahaayeen dhirtaasi in ay damiyaan waxa uu istaagay odayaasha deegaanka iyo ciidanka amniga iyagoo markaasina ku qaaday weerar kooxdaasi dhalinyarada ah isla markaasina ku soo qabtay iyaga iyo ay gubayeen isla markaasina loo soo bandhigay maanta gudaha magaalada Woodward warbaahinta iyagoo odayaasha waxgaradka culimada diinka ciidanka amniga iyo golaha deegaanka ee degmada Woodward ay ku soo bandhigeen iyagoo ku gubaya dhuxushi halkaasi kooxda dhalinyarada ahaydna u dhaadhiciyay xabsiga ayaa arintani waxay uga digeen guud ahaanba cid allaaleeyo cidii isku dayda in ay ficilkan oo kale ku kacdo in ay markaasi la kulmi doonaan tallaabadaas oo kale ugu horeyntii halkaasi waxa ka hadlay odayaasha oo faahfaahin ka bixiyay markaasina digniin u diray gawaadhida yana wada ee halkani maraysa deegaanka in markaasina yana sidaas oo kale ay la kulmi doonaan cidii lagu arkana ay tallaabada noocaas oo kale lagu qaadi doono hawsha aad aragtaan ayaa deegaanka ka jirtay oo dhirtii la goynayo oo dhuxushii la gubayo oo waxa weeyaan ummadii wixii ay ku noolayd xooluhu ku noolaayeen la barakicinaya ayay ahayd dabeedna guddiga golaha deegaanka degmada Woodward iyo ciidanka oo iskaashanaya ayaa go'aanka tallaabada qaaday hawlgalka la fuliyay dhuxusha ayaa lagu soo qabtay waxa kale oo la ilaalin doonaa goobka iyo wadooyinka iyo wixii mudarrad deegaanka ku ah iyo loo dhan yahay oo dadku ay u dhan yahay haday tahay mid dhuxusha gubaya haday tahay mid dhirta goynaya haday tahay mid wadooyinka goynaya haday tahay mid khamri keena waa la sheegay khamriga dad keenay haday tahay mid amniga iyo nabadgelyada khalkhal gelinaya dhammaan wixii deegaanka mudarrad ku ah waxa la go'aansan in meel looga soo wada jeedo tallaabana laga qaado waxa go'aan kale oo lagu gaaray gaarigii la soo mara meel kasta ka keeno ama deegaankan ha ahaado ama deegaan kale ha ahaado gaarigii la soo mara waa waras waa la qabanaya sidaana waa loo gubaya isagana waa la ganaaxiya aad aragtaan indhihiina ku aragtaan saxaafadu arkayso odayaashii deegaanku ay goobjoog ka yihiin dhalinyaradii goobjooga ay ka tahay wataa dhibtii deegaanka lagu wado marka waxa weeye degmada odayaasheedii waxay dadaal oo galeen in la soo qabto dhuxusha iyo wixii wataba sidaas oo aan qaarna dhaadhicinay xabsiyada loo gudbiyay baashiga weydinka arkaya oo hadda wata la gubay waxa weeye waa la dagaalanta xaalufinta dadka sameynaya ee la dagaalamaya deegaanka iyo dhirta la dagaalamaya sidii looga hortagi lahaa ee loo qaban lahaa ayaa loo kacay arintana waa arin shariicadeena islaamku ay sugayso oo hadda wixii ka dambeeya cidii lagu qabto lagu qaadayo tallaabo adag lagu qaadayo mid kale waxa oran lahaa dadka xoolaha dhaqda oo anigu waan kamid ahay waxa weeye war xoolaha dhuxusha la gubayo iyo xooluhu geelkii daaqayaan ma qaybsamaan taasi ka bacdi waxa ka hadlay taliyihii horkacayay duulimaadkaasi lagu qaaday kooxdaasi isla markaasina sheegay in aan loo dulqaadan doonin in deegaanku uu noqdo mid baxa isla markaasina xaaluf iyo dabada loo qabto deegaankii odayaashiisii ciidankii dhammaan way isgarabsadeen wax allaale wixii xumaan ka wada deegaanka dhammaan go'aan baa laga wada qaatay ilaa ciidan ilaa odayaal ilaa dumar go'aan baa laga qaatay ciddii ka soo horjeesta go'aanka laga qaatayna maxkamad baan marin ciddii aanu ku qabanno arrintaas gaarigu waa ganaax qofku waa jeel iyo dhaadhicin isku soo wada duubo arintani ayaa waxa soo dhaweeyay dhammaan bulshaweynta qaybaheeda kala duwan ee ku nool degmada Woodward iyagoo markaasi sheegay in ay si buuxda u garab istaagi doonaan golaha deegaanka ee odayaasha iyo waxgaradka isla markaasina ciidanka ku gacan siinayaan cid allaale iyo cidii isku dayday inay ku kacdo falka noocaasi kala Cabdiciro Soomsa TV degmada Woodward